wararka naga soo gaaraya deegaana ku yaal ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxa ay sheegayaan in halkaas ay dhacdo naxdin la ka dhacday kadib markii uu wiil hooyadiisa xun u dilay dilka waxa uu si gaar ah uga dhacay deegaan lagu magacaabo Labiley oo hoostaga galaaday kana tirsan gobolka Doolo ee dawladda deegaanka Soomaalida sida ay codka gobolada dhexe u sheegeen ehelka hooyada geeriyootay wiilka ayaa hooyadii ku dilay ul kala oo lagu tunto badarka taas oo uu la dhacay ilaa inta ay naftu ka baxayso hooyadii dhacdadan dilka ayaa ka dambaysa kadib markii wiilku lacag uu ku dhoofo hooyadii weydiistay balse ay u diiday maadaama hooyada geeriyootay ayna haynin lacagta wiilkeedu doonayay gabar ay habaryar u tahay hooyada geeriyootay oo la hadashay codka gobolada dhexe ayaa xaqiijisay in wiilka dilka geystay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka maamulka Somali State gabadhan oo ay ka muuqatay argagax iyo naxdinta ka soo wajahda dilka habaryarteed oo awoodi weysay inay waraysi bixiso ayaa waxa hooygeeda gaalkacyo ku booqday wariyaha codka gobolada dhexe gaalkacyo Xuseen Nuur Xuseen oo aan kulanka gabadha kadib la hadlay ayaa si faahfaahsan igaga warramay sida wax u dhaceen iyo xogta gabadhu ay siisay intaba cabdirashiid sidaad maqasheen baa dil xilin la la sheegay waxa ka dhacay deegaanada deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan gobolka Doolo waxa la sheegay in wiilku hooyadii markaas si xun u dilay deegaan lagu magacaabo Labiley oo dhaca galaadi oo hoosta gobolka Doolo sida ay wararku ugu soo gaarayaan cabdirashiid wiilka ayaa la sheegay in hooyadii ku dilay ul kal ah oo si lagu tunto kadib markii ay lacag weydiistay la sheegay in hooyadu inaysan lacagtaasi markaas aysan awoodin oo ay sidaas isku maandhaafeen cabdirashiid gabadha la dilay gabar ay habaryar u tahay oo la hadashay idaacadda codka gobolada dhexe waxay noo sheegtay in ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka oo loo yaqaan liyu booliska ay gacanta ku dhigeen ninkaasi lana hayo ninkii falkaasi geystay waan gartay marka xilliga dilku dhacayay Xuseen ma wiilka iyo hooyada la dilay kaliya bay ahaayeen mise dad kale baa weheliyo oo ku sugnaa goobta cabdirashiid waxaa la sheegay in ay weheliyeen oo kaliya dad yaryar markaasi aysan jirin cid kala qabatay markii falkaas uu geysanayay waxaana la sheegay in ay ahayd xalay fiidiyadii xilliga ay ku beegnayd 10 ama 4 meelaha xilliga ay u yaqaanaan dadka waan gartay ugu dambeyntii marka Xuseen waxaan ka rabaa hooyadu ma waxay u dhimatay kashi ay sheegtay in wiilku la dhacay mise dhaawacan ba meesha looga qaado kadib ay geeriyootay cabdirashiid sida loo xaqiijiyay meesha waa deegaan yar ma lahayn wax markaas isbitaalo ah oo ka dhawaa laakiin waxa la sheegay in isla meesha ku dhimatay oo xilli dambe loo yimid meydkeeda dacwadaasna waxay xiriir ku abuurtay dadka deegaanka waana afal markaas aad looga argagaxay sidoo kalena deegaanada Soomaalida ay kasoo badanayeen dhacdooyinka noocan ah oo aan horay deegaanada looga aqoon ama naadirba ku ah Soomaalida dhexdeeda sida kursiyo in hooyooyin ay jaan caruurtooda markaasi marka waxay noqotay dhacdo in cabdirashiid marka la fiiriyo shaqo ahaan ama diin ahaan baa aad looga argagaxay waa dhacdo naxdinta iyo argagaxida xabaarsan dad badanna su'aal iska weydiinayaan sida ruux la dhalay ugu bareero in uu waalidkii dilo balse waxay ka mid tahay dhacdooyinka waayadan dambe ku soo badanaya dalka waxaana maalmo ka hor sidan oo kale nin ka mid dadka deegaanka Xawaalle uu dilay wiil uu dhalay kaas oo ku eedeeyay inuu hilib ka cunay xuska ayeydii oo geeriyootay aabaha dhalay ayaa waxa uu ka tirsanaa isla markaana daabacsanaa kooxdiimeedka takfiir